Soomaaliya oo kamida dalalka ku jira jaamacadda Carabta ayaa xiisada siyaasadeed ee Qatar iyo wadamada Sacuudiga hormuudka u yahay waxay ku noqotay laba daran mid dooro inkastoo markii dambe ay ka noqotay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhinacyadaasi meel dhexdhexaada waxaa maanta magaalada Muqdisho ka degay wafdi wasiir ah oo ka socday dowladda Qatar oo kulan la qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha iyo xubno kamid ah golaha wasiirada sida ay noo sheegeen qaar kamid ah golaha wasiirada dowladda Soomaaliya kulankoodaasi waxa looga hadlay arrimaha khilaafka gobolka iyo gudoominta dowladda Qatar lagu sameeyay kulankan oo ahaa mid ay warbaahinta inta badan ka warqabin ayaa waxa uu yimid iyadoo dhawaantan ay jirto hadalhaynta la xiriirta in dowladda Soomaaliya ay ku cadaadinayso dowladda Sacuudiga inay ka mid noqoto dalalka ku raacay mowqifkeeda ka dhanka ah Qatar haddii kalena ay waayi doonaan ballanqaadyo qarash mucaawino ah oo dowladda Soomaaliya Sacuudiga ay ka heli lahayd inkastoo dowladda Soomaaliya ay ku adkaysatay misna in ay meel dhexe iska istaagto haddaba maxay tahay Soomaaliya waxa ay ka baqaysaa haddii ay dhinac raacdo gaar ahaan halka dowladaha Carabta ay u bateen oo Sacuudigu uu hormuudka u yahay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kamid yahay guddiga u qaabilsan arrimaha Carabta Soomaaliya muddo badanna waxa uu ka qayb galay shirarka Carabta iyo Soomaaliya Soomaaliya wax badan oo ayada ay ka baqaysa ayaa jira mahmaahana waxay leedahay ninkii dadku gudka dambasna dib u maleynaya Soomaaliya 77 dagaalkii la galay Ethiopia marka la fiiriyo waxa ku fallaha dawlado oo markaasi ayaga dagaalka markii ay la gashayna ayaga ballantii ooga baxay oo calaaqaadkina ay u jireen ruush dawladii wax laga sugayay ee Mareykan ugu horeeyana laga waayay taageeradii laga sugayay kuwii yirina dal anaga ku taageereen ay yiraahdeen waa naloo diiday inaan gacan idin siino ama aan dhaqaale ama aan ku idin kugu deeqo haddana waxaa maanta ka taagan bariga dhexe isxulufaysi oo fara badan oo maanta kan anaga dariskana la u Yemen ay maanta ku dagaalamayaan Xuutiyiin oo Iiraan taageerayso qolo kale oo iyagana Shiici iyo wixii kale iyo madaahib oo ay iskala baxday xataa qaarkood amuuro siyaasadeed amuuro diineed lugaha kula jirta amuurahaas oo dhan ee saameynta ku leh bariga dhexe iyo dowladaha dariska ah oo qaarkood aan la isku wada fiicneen oo anagana qaar xiriir wanaagsan naga dhaxeeya ee Carabi ay leeyihiin oo Turkiga iyo Iiraan ay ka mid tahay oo maanta hadii arrimahan anaga aan qayb ka noqono mid waliba culeyskeeda siyaasadeed iyo dhibaatada amniyeed anaga ay na saameynayso ayaa dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon maradis ma artay dibadis maradiisa geed ma dhaafay la sheegi jiray inaan muddo eenaasi dhexdhexaadnimada aan ku adkaysano xiriirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ayaa ahaa mid soo fiicnaanaya waayadan waxaa dad badan ay u arkaan in xubno miisaan kula dowladda Soomaaliya ay saldhig u noqdeen in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado iyaga oo si gaar ah xiriir ula leh aawadeed Soomaaliya inay ku degdegin qaadashada talaabada Sacuudiga iyo xulufadiisana taasi waxaa la sheegayaa in ay door weyn ku lahayd sidaas ay tahay xubnaha wafdiga dowladda Qatar ee booqday magaalada Muqdisho maanta ma la dhihi karaa ayaga laftooda waxa ay ka doonayaan dowladda Soomaaliya inay ka daadijiyaan aragtidooda ah inay taageerto sida Turkiga oo kale su'aashaas waxa iga jawaabay Professor Afyar Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar وهذا الدولة تركي أي كم تهاتي توصل قدر الله تصفي ويري قدر يعني وعيدا باندرينا يري أما تقال صوب دري أما political position عطا Somalia position كده هذا ما بقى هذا مركا هذا من أمرينا يقدر لسه جدنا أنت تكتائلا تركي بريرة وأنك نصور راعة إن أساس لا أمرين ماي هذا وحلقة هذا دولة قدر in badan dadka xataa ama ka aamusan ama dadka heshiiyay inay u aragto inay wax dhib u arkin ayada dhinaceeda xasan aan qiyaasaya Soomaaliya oo ah wadan la hardamaya inuu ka soo baxo mushkilada la dega dalka dhowr iyo 20 sano oo dagaalo iyo sidoo kale kooxad diimeedyo gacanta ku haya qaybo kamid ah gobolada ay kamid yihiin Sacuudiga waxa uu kamid yahay hadaba dalalka Soomaaliya ugu yaboohay malaayiinka dollar si ay uga soo kabato mushkilada haysata hadaba maxay noqonaysaa go'aanka Soomaaliya caalami ahaan marka loo eego waxa uu ka dhigan yahay mowqifkooda markale Professor Afyar Cabdi Cilmi hadda xilligan si wanaagsan mowqif fiican bay ka qaateen كأكون أقوى كيسان أيضاً عندنا علاقة موجودين وحي
waxay dhihi karaan sacuudiga laftiisana waxay u sheegi karaan waxay dhihi karaan war annagu hirgeli kama baxno sidaan hadda dan badnay in waxaan hadda inta la qaato dagaal iyo qolo aan la dagaalno meel ka joogtana wax macnaha ay soo kordhinaysa ma laha marka aniga sidaan hadda horeba u iri dhowr marna ku celceliyey mowqifka ay dawladdu qaadatay wuu ila saxan yahay kaasaana aniga ila quman inay ku adkay xiisada u dhaxaysa sacuudiga iyo qatar ayaa cirka isku sii shareersay maalmihii ugu dambeeyay markii dawladda sacuudiga ay ku eedeysay wadanka ku yaala golofka inuu dhaqaale siiyo argagixisada taasoo sacuudiga ay ku raaceen dalal ugu horeeya wadanka masar waxaana qatar waxba kama jiraan ay ku tilmaantay arrinkaasi eedaha loo soo jeediyey